shacabka Soomaaliyeed baa salaamaya waxa ayaantan ku jirnay in hawlgal loola dagaalamay kooxaha sharwadayaasha ee argagixisada ah ee Al-Shabaab kuwaas oo ku soo qaaday duulaan qaawan guud ahaan dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed duulaankaas oo qorshihiisu ahaa in lagu ciribtiro shacabweynaha Soomaaliyeed nimankan argagixisada ah qorshooda koowaad waxa weeye shacabka inay dhameeyaan si dalka ay ugu helaan fursad ay ku maamuli karaan marka horeysa waxay target gareysanayaan ama ay weerarayaan ama ay wada saarayaan inay xasuuqaan guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaan kadibna ay dalka adiga xukumaan sala socotiinba 14kii bishii October ayaa dagaal ama weerar qaawan oo isqarxin ah oo suicide mission ayaa kooxda argagixisada Al-Shabaab waxa ku soo qaadeen deegaanka ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho adigoo isgoodka soo ku xasuuqay in ka badan 400 oo shacab Soomaaliyeed ah in ka badan ay ku dhaawacmeen taas marka waxay muujinaysaa in kooxahaas ay yihiin dad burcadiimeed ah oo Soomaaliyeed ah oo Islaandiid ah oo shaqeeya dawladda shisheeye dagaalkaas qaawan bay wadaan qorshooda koowaadna waxa weeye shacabka Soomaaliyeed dhameeyaan sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaa looga baahan yahay maanta inay midoobaan kala qaybsanaanta siyaasadda in laga tago gacmaha in la isqabsado nimankaas dalka hogaaminaya ee dhalinyarada ee Xasan Ali Khayre iyo Farmaajo dalka meel bay u wadaan meeshaas waa meel barwaaqo ah annaga soo aragnay waa meel guul iyo mataqaanaa waxa weeye go'aano ku dambeyn doonta daartiin horumar iyo dalku inuu hore u dhaqaaqo waxa loo baahan shacabka Soomaaliyeed joogaanba inay ka tagaan wax loo yaqaan qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta si dalka loo badbaadiyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo taageerayaasha aad baan u salaamaya ayaantan leef ma soo gelin baraha bulshada ayaantan mataqaanaa waxa weeye saameynteeda waa ku yaray sababtoo waxa weeye hawlgal military ama hawlgal ka dhana kooxda argagixisada ayaa mataqaanaa bilaabanaya sidoo kale waxaa jira fasax baan ku jiray wal fasax baa dhamaaday hawlgalkii baan wadnaa ayaantan hawlaha magaalada Muqdisho ka socday adna dagaal baa lagu qaadiyaa guud ahaan deegaanada aysan kooxda argagixisada dhammaan taageerayaasha waa salaamaya